shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo looga hadlay xoojinta howlgallada dib u xoreynta deegaanada argagixisadu shacabka ku dhibaateynayaan ayaa lagu bogaadiyay guulaha ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanku ka gaareen howlgallada lagu cirib tirayo nabadiidka ee ka socda qaybo badan oo kamid ah gobolada dalka. kulanka uu gudoomiyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa wasaaradaha difaaca iyo amniga dalka looga dhageystay warbixino ku saabsan howlgallada guuleystay ee nabadiidka loogu xoreeyay deegaano badan, qorshaha sugidda amniga iyo xasilinta magaalooyinka lagu xoreeyay maleeshiyaadka gobolkoodu sii dhacay ee Al-Shabaab. Toddobaadkii hore golaha wasiirada waxa ay magacaabeen guddiga abaabulka iyo isudubaridka howlgallada argagixisada lagu dabargoynayo, waxa ayna wasaaradihii guddigaasi ka midka ahaa uu maanta goluhu ka dhageystay warbixino la xiriirta qorshayaasha ay ka dejiyeen qaadashada doorkooda ku aadan ciribtirka argagixisada. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay qorshaha xukuumaddu uu yahay in guud ahaan dalka lagu xoreeyo argagixisada isla markaana deegaan kasta oo laga xoreeyo la gaarsiiyo dowladnimada iyo adeegyada bulshada si degdeg ahna loogu sameeyo maamul iyo kala dambeyn. Shacabka Soomaaliyeed ayaa ku baraarugay dhagarta argagixisada ee duulaanka ku ah diinta dalka iyo dowladnimada isla markaana banaystay maalka iyo nafta sharafta ummadda Soomaaliyeed, taasoo keentay in bulshada Soomaaliyeed ay hormuud u noqdaan howlgallada dib u xoreynta dalka isla markaana dhabar jabisay qorshihii guracnaa ee maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.